waxaanu baabiinay ilaa 75 ceel waxaanu soo baabiinay sanduuqyada la dhaxdhigay dhirta calaamadiye geedaha calaamadiye 20 cisho kadib maanta ayay si rasmi ah u soo gabagabeeyeen mas'uuliyiinta uu hogaamiyo gudoomiyaha gobolka Awdal Maxamed Axmed Caalim Timbara howlgalka burburinta dhul daaqsimeedka la kala ootay ee deegaanka Biji mas'uuliyiintani ayaa muddada uu socdo howlgalkaasi baabiyay 65 beerood iyo in ka badan 75 ceel oo laga qoday dhul daaqsimeedka la kala ootay kuwaas oo sabab u noqday in khilaaf soo kala dhaxgalo bulshada walaalaha ah ee ku nool deegaanka Biji gudoomiye ku xigeenada gobolada Maroodi jeexiye gabilay taliyaha saldhigga koobaad ee ciidanka qaranka Soomaaliland taliyaha howlgelinta ciidanka booliska gobolka Awdal iyo mas'uuliyiinta degmooyinka Lughaya Dar es Salaam iyo Agabar ayaa qayb ka ahaa howlgalkani gudoomiyaha degmada Lughaya Cabdilaahi Nuur Dixood oo ugu horeyn hadalka qaatay ayaa sharaxay howlgalkan iyo waxyaabihii uu qabsoomay muddada uu socday waxaan joognaa waa dooxii Biji waxa howlgalkii soo bilaabmay Rabadaanta ka hor aan soo bilownay iyo maanta aan rajeynaa in halkan ku soo gabagabayno oo goobtii ugu dambeysay ayaan taaganahay maanta ka shaqeyno dhulka aan baabiinay waa 60 beerood oo ceelashoodii wata iyo 75 ceel oo dhul loogu talagalay hadda in la beereeyo loo qorsheeyay qodan oo runtii aan soo aasnay sidoo kale waxaa madashaasi ka hadlay taliyaha howlgelinta ciidanka booliska gobolka Awdal Amiin Maxamed Cabdi iyo taliyaha saldhigga koobaad ee ciidanka qaranka Soomaaliland General Yuusuf Iimaan Diiriye waxayna yiraahdeen hawsha muddada badan la soo hayay gacanta lagu soo hayay inta badan laga shaqeynayay waxaan uga digayaa bulshadii laga baabiyay inaanay dub ugu noqonin ay ka waantoobaan saacada wixii ka dambeeyay dub loogu soo noqdo waxa laga qaadi doonaa talaabo sharci laga qaadi doonaa maanta baabiintu bay ahayd iyo alaabtiina ka gurta waxaan si 100% uga digayaa inaan dadkaas ku soo noqonin oo aanay soo dhan wax dambe ka beerta inaan dib uga soo noqon baan uga digayaa insha Allah Abdullaahi Kariim dad badan ba waxay qalbiga ku hayaan inay marka laga tago dib u bilaabaan cidina ma bilaabi karto si loo baabiyay way u baabasanaanaysaa xukuumaddu kama soo horjeedo inay dadku wax la soo baxaan laakiin in wax la soo baxo oo nolol la helo waxa ka weyn inay fidna timaado oo ay dadka xigtadii isku dilaan dhulka sidaas darteed baa loo doorbiday in dhulka la baabiyo loona celiyo daaqsin dhankooga gudoomiye ku xigeenka gobolka Gabiley Cali Cabdi Cabdilaahi Cali Xasan iyo sidoo kale gudoomiye ku xigeenka gobolka Maroodi Jeex Khadar Baaruudo oo hadalka qaatay ayaa tilmaamay waxaanu soo baabiinay tirada beeraha ay la soo sheegay 60 ka beerood beerbiyo daha macal ceelashoodii watay 75 ceel oo ka fog dhulka dooxa ka fog oo runtii dhulkii neefka xoolihii ku dareerayay ama neefka waqooyi u soo dhaadhaca guban u soo dhaadhaca uu soo marayay la qaytay taakadaad martaba dhulka waxa lagu sameeyay calaamad sheegaysa in halkaasi cidi leedahay arrintaasi waxay noqotay arrin aan loo dul qaadan karin arrin qaranku runtii uu ka fadhiistay go'aanna laga gaaray taasoo maanta aanu ku gabagabaynay inaan dhulka beeraha masaxno waxaan uga digaynaa sida ay madaxdii iga horeysayba sheegeen dhulkaas in dib loogu soo noqdo ciidan baa la dhigi doonaa dhul daaqaankiisaas u ahaanaya ciddii dambe ee la arkay inay wax ka qabanaysana sharciga la marin doonaa hawshan dooxa Biji oo runtii dadka aad moodo in ay aanay u kala socnayn waqtigan xaadirka dhulkii daaqsintii loo dhan jiray iyo dhul beereedkii ay u kala socnayn oo dhulkii daaqsinta loogu talagalay maadaama laf dhabarta dhaqaalaheenu ay tahay xoolaha ay tahay duulimaad lagu yahay kanoo kaliya ma waqooyi ma kala dhahday waxa jira dooxyo kale oo iyagana saas lamida loo beereeyay baa jira kuwa mustaqbalka hadii lahayd wasaaradda deegaanka waxay ugu qoondeysan tahay ama ugu xariiqsan tahay ama ugu sajilan tahay wasaaradda deegaanka dooxyadii hore laftigooda ee la beereeyay inay yihiin daaqsin yihiin bay ugu rajistaraysan yihiin iyo dhammaan deegaamada ama goobihii loogu talagalay daaqsinta ee gobolada dhammaantood waxaan uga digaynaa dadka maanta bartaa laga kaxeeyay in ay dib u soo noqdaan runtii si wanaagsan bay noola shaqeeyeen dadka deegaanku guud ahaan si qurux badan oo wanaagsan bay runtii noola shaqeeyeen waana la garteen danta ku jirta in dhulka loo daayo daaqsintii si loo daayo way nala garteen goboladan horta gobolka Maroodi Jeex baa dhalo Hargeysa ay ka tirsanaan jirtay Awdal iyo Gabiley ba ka tirsanaan jiray maanta waa 3 gobol oo jaar ah oo walaala
dadka saddexda gobol deganba waa dad isdhex degan oo la kala aqoonin waxa way dad loo kala abtirin karana maba ahaba laakiin nin dan leh ayuunbaa inta badan isku dayay inuu kala abtiriyo dadka saddexda gobol degan saddexda gobol sida aan u midaysanahay saddexda gobol u midaysanahay ayaa taladiisa iyo arrinkiisuna aan uga midaysanahay deegaamadan in la ilaaliyo xoolaha loo ilaaliyo nabadgelyadiisa la ilaaliyo. Ugu dambeyn waxaa madashaasi hadalka soo gabagabeeyay isla markaana faahfaahin ka bixiyay waxyaabihii u qabsoomay muddada uu socday howlgalkaasi gudoomiyaha gobolka Awdal Maxamed Axmed Caalim Tiimbaro. Hawshan maanta oo markii hore ugu soo talagalay inay 3 cisho ku dhamaanayso waxaanu aragnay inay hawshu taanu soconay baahay ee ay tahay fidmo in meesha xaalad laga abuurayayba in beer walba laga daba qodob la dajay in magaalooyinkii ceelal lagu wareejay in dhul daaqsimeedkii sidii waxa la sheegay geediba la suntaday oo rinji caadi iyo rinji buluugiyo lagu kala suntaday meelaad istaagtaba dalkeena aan lahayn waxaan ugu qasabtay inaanu u dhabar adeegno markaa inay nagu qaato meeshaanu 3 cisho ku soo talagalnay inaanu 5 iyo 10 cisho u dib jiro waxaanu u dib jireen anagu muraad kama naalno beerna kama soo qaydanayni fidmada halka ka soo socotay inaanu ka hortagnay dadka deegaanka inta badan dabada laga riixaya niman meel kala jooga ama lacag laga qaaday beer baan ku qabanaya ama isagu muraad kale loo halka inoo soo qabtada haya ayaa ka dambeeya waxaan leenahay ka waantooba dhulkaas loo baabiyay buu baabaasan yahay nin walibana wuu iskaga tagayaa ninkii dambe lagu qabto waxa kharash baxay u arkay intaasoo baabuur koob iyo 10 baabuur ba halka taagan oo ku xitaa ciidan ku hawlgali laaba hawshan ka qayb galnay 4 gaaro ciidan halka tooga waxa soo dhami waxay u joogan inay fidmo halka ka timaada ka hortagaan lama diidaneen wax la beerto laakiin beerta hadday fidmo keenayso waa laga hortagay waa la joojinaya waa la ganaaxaya waa la xirayaa waa la qabanaya cidii dambe isku daydana cidda ka sii dambaysa waxa sameeynaysan rag badan uu calaamadsan oo markaan dadka wareysano adiga raashinka ku keen hebel adiga yaa ku soo dirtay hebel adiga yaa meesha waxyaabo badan warar badan baan kale intaan hawsha ku jiray waa lagu la xisaabtamaya nin walba ka warwareeg dooxayna dib ugu soo noqoto Waa Cabsalaan Bashiir Faarax Cabsalaan Saha warbaahinta qaranka Soomaaliland.